السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب تكلم كأقوم جود كسر دوادة برنامج جارة برنامج كان برنامج ده هو النجود دمية هي وحمرتين نجوا أقوني هن عبد الله عبد القادر عبد العزيز وكم قاعد مستر تكذا ساكسونتين لما أنت مع وقري بوجو وقوم قاعد دري قرآن كيسينسك مرك هلقا وعن قوة دينا سؤالك هو كسر دوادة برنامج كمان وهرين شرحات كوبن نجسي بوجا قرآن كيسينسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان رواينا وهرين إلهي سبحانه وتعالى أمهد عليو يسوع رجلي مارتي إنان سمايا أما قربوق لو ما قدر القرآن كيسانسك سيدا ودكتين أن كسب بندق مارتي ودن كبنجالش عاصمة دي صدقة نحارب وهرين إنان أمهد عليو تيم كأقوم جود وهريو صاحب كإنجنير عبد الحفيد iyo saaxiibkii Xasan oo maartay gacan weyn iga sii inaan soo gudbiyo maartay muuqaalkan qiimaha badan marka su'aasha ugu horeyso hadaan isku dayo inaan jawaab in ka siiyo ah sharaxaad kooban naga sii buugaada quraanka sayniska sida caadiga waxaan wada ogsoonahay quraanka iyo sayniska waxa ka dhaxay maartay xiriir weyn quraanku si caadiga waa hadalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maartay ugu talagalay adduunyadan quruxda badan in lagu dhaqo oo maartay kala dambeyn lagu helo sida si lamidana waxa ku jira saynis far badan oo maanta la daah qaaday oo maartay lagu dhaqmo oo faa'iido badan laga sameeyay sabab marka taas ay sababtay inaan maartay aan xuso dhowr saynis oo maartay quraanka ku xusan maadaama ay iska yartahay maartay macluumaadka laga ogyahay xaq waliba dhanka Soomaalida at least 13 ciwaan ama 14 ciwaan oo saynis ah ayaan ku xisab buugayga quraanka sayniska su'aal ciwaanadaas qaar kamid ah waxa kamid ah maartay maraaxisha oo maro uurku jirka waxa kamid ah kaleeto fingerprinting waxa loo yaqaano oo maartay adduunyada maanta si casri loo adeegsado waxa kale kamid ah buuraha waxaan kale buugay ku xisay maartay inay jiraan dareemayaal aan la xiriirin dareemayaasha kaliya ah kuwa maskaxda laga dareemaanayn kuwa maqaar ku jireeyeen quraankan maartay sidaas ay maartay ku xusan tahay marka waxaan filayaa buugaas qofkii akhra ama mar uun arka inuu ka heli doono macluumaad farban sidoo kale waxaan dib uga daray buugayga macluumaad dunida hadda wali ku cusub oo la the black holes ama baraha madow ama carabi lagu dhaho maartay thuqubat sawda su'aashaad waxay ku leedahay sida ay kugu suur gashay inaad buugan qorto waa mahadsan tahay injineer Cabdi Xafiid su'aal muhiim waay dabcan waxaan filayaa buugan markii ay ugu soo dhacday aragtidiisa waxay ahayd maraan in badan aan daalacday muuqaalo kala duwan oo ku maartay aan YouTube ka daalacday iyo akhrin fara badan oo Google kan ka sameeyay sidoo kale waxa igu caawiyay saaxiibkii yaraan saaxiibana hal injineer Ahmed waa muhiim inaan xuso inuu maartay buugan oo halkan soo gaaro marka daraaseen fara badan aan sameeyay darteed waxaan bilaabay bishii 12 sanadkii hore isla maartay sanadka 2019 bishii 7 ama 8 waxay ii soo gashay inaan macluumaadka aan qoray aan la wadaago bulshada muhiimad inta leeg ayuu leeyahay buuga quraanka sayniska dabcan injineer waxa la filayaa quraanka iyo sayniska muhiimadiisu waxay tahay muhiimad aad u weyn aan soo koobi karin sababtoo dunida muslimka ah iyo kuwan muslimka ahayn maanta way ku mashquulsan inay maartay macluumaad far badan ka ogaadaan quraanka maadaama waxaan wada ogsoonahay adduunyada horumartay waxay aad iskugu mashquulisay in ay sayniska wax badan ka ogaato sidaas darteed ay marka bulshada Soomaaliyeed ay muhiim ugu noqon doontaa inay maartay ogaadaan sayniska adduunyada meesha marayaan kadibna ay masdar ka dhigtaan quraanka ay kala soo baxaan ma jira aragtiyo khaldan oo la aaminsanaa ee dib laga fahmay sida uu quraanku kaga hadlay injineer waa mahadsantahay dabcan waxa jira aragtiyo qaldan oo maartay laga haystay sayniska oo si qaldan u haysta markii hore laakiin quraanka 1400 oo sano ka hor oo si waadax ah maartay oo kaga warrama arintaas tusaale aragtida qaldan waxa kamid ah oo maartay la aaminsanaa dhulka shaybka dhulka kaleeto inuu wareeg sax yahay la aaminsanaa markii hore balse dib laga fahmay in maartay quraanka baalka dhulka uu yahay goobo labada dhinac u dheer aan goobo sax aan ahayn waxa kale kamid ahay xasharaadka qaarkood oo la aaminsanaa kuwa hawsha qabta inay yihiin kuwa lab marka aragtidaas dib laga ogaaday quraanku mar hore ka hadlay buugaaga waxa ku xustay in ilmaha dhalanaya wiil ama gabar midka uu noqonay uu mas'uul ka yahay aabaha taas maxaa ula jeedaa injineer waa mahadsan tahay dabcan waxaan buugay ku xusay ilmaga dhalanaya wiil iyo gabar midka uu noqonay inay mas'uul ka yahay maartay aabaha aragtaas waxaan kala jeedaa horta aragtaas sayniskana wuu qeexayaa quraankana way ku qoran tahay tusaale waxaa jiro
cilmiga genetics-ka ama cilmiga waraadka wax lagu magacaabo sida adiga waxa wada ogsoonahay aabuhu wuxuu leeyahay chromosome X iyo Y hooyaduna waxay leedahay chromosome X macnaha X waxay ka taagan tahay waa gabar aabuhuna wiil iyo gabar labada sidoo maaragtay xambaarsan yahay haddii aabuhu uu ku daro maaragtay hooyada chromosome X wax dhalanaya waxay noqonayaan gabar haddii uu aabuhu ku daro chromosome Y wax dhalanaya waxay noqonayaan wiil sidaas darteed quraankan wuxuu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa annahu khalaqa as-zawjayn dhakara wal untha marka aayadaas waxay yani laga dhadhansanayo culimada islaamka iyo kuwa sanadku sheegayaan in Allah soo hormariyay abuurka wiil iyo gabar yani wiilka ugu horeey kadibna gabar ku xigto macnaheedu waxa waay aabuhu asaa mas'uul ka ah inuu waxa noqonayo wiil iyo gabar iyo hooyadu marka wax eedo kuma laha sidii aragtida carabtu ay aaminsanayeen oo hore oo qaldaneed markii laga soo tagay wax nooga sheeg cilmiga laga ogyahay buuraha ma kuwa taagan baa waa dhaqdhaqaaqin mise waa kuwa ku jira socod shaqada buuraha ay dhulka u hayaan waa maxay engineer sida caadiga waxaan xusay buugiga waxaan ku xusay buuraha horta waxay kamid yihiin calaamadaha ugu waaweyn ee jiritaanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu garto buuraha shaqada ugu muhiimsan quraankana ku xusan adduunyada caadiga aan isla wada ogtahay waxa kamid ah inay ilaaliyaan maartay dhaqdhaqaaqa dhulka sheekinka inay ka ilaaliyaan dhulka inuu maartay ruxmad sameeyo sidaasna suuratul anbiya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku xusay mideeda kale buuruhu aragtiyo waxa jir dadka ay aaminsiin buuruhu inay yihiin yani kuwa nagi oo aan dhaqaaqin sidaas ma ahan buuruhu waxay ku jiraan socod joogto ah isla maartay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa taral jibaala tahsabuha jaamida yani waxaad arkaysaan buuraha oo u eg kuwa aan dhaqaaqin oo iska yani meel nagi balse Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadaas wuxuu ku leeyahay wahiya tamurruha marra saxab laakiin waxay ku jiraan socod sida daruuruhu ay socod ugu jiraan marka buuruhuna shaqo ahaan waxa dhulka inay celiyaan waxayna ku jiraan socod joogta ama aha kuwa nagi buugaaga waxaa ku qoran dhowr xasharaad oo dhawaan la ogaaday kuwooda shaqada qabta inay yihiin kuwooda dhidii quraanka oo sidaas ku qoranta qaar ka mid ah waxay nooga sheeg waa mahadsantahay engineer waxa yani buugga waxa ku xusan dhowr xasharaad weerana u maleynaa ilaa 3 ilaa 4 inay gaarayaan saddex xasharaad markii horeeto qaar ka mid ah xataa qarniyadii haddeer tagay qarnigii maaragtay 20aad qarnigii 19aad ayaa qaarkood la ogaaday xasharaadkaas kuwa dhadig iyo kuwa lab functional kuwa hawsha qabta waxay yihiin balse quraanku 1400 sano ka hor ayaa maartay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku sheegay waxa kamid ah shinnido kaleeto shinnidu wax malab ka sameeyo ma aha midka maartay lab waa midka dhadig sida tusaale hadii quraanku wuxuu adeegsanaa kalimadaha lagu hadlo maartay lagu qidaabo yani wax dhadig sida ittaqidiyo oo Ilaahay ka yeelatay oo leeyahay maartay shinnida sida fasluki oo kaleeto oo quraanku u adeegsaday waxa kale oo kamid ah maartay quraanjada midda boqor ee hogaamiso quraanjada waa mid maartay dhadig aan lab ahayn tusaale Ilaahay wuxuu adeegsaday kalimadaha lagu hadlo maartay kuwa dhadig kuwaas waxay leeyahay marka qaalad namlaha oo Ilaahay qaalad oo adeegsa oo lama dhihin booska qaala sidoo kaleeto waxa kamid ah maartay caarcaarada mid guriyaha dhistaa ma ahan midka lab waa midka dhadig tusaale ittaqadad baytan oo Ilaahay ka dhigatay waxa loo adeegsaday adanata wayna baanta sidoo kale kaneecadana waa kamid inkastoo aan buugiga ku xusan laakiin saddexdaas xasharaad buugiga ku xis kuwa shaqada qabta inay ka dhadig insiyaanka iyo sayniska wax xiriir ah kama dhaxayn ayaa tiri oo aad ku xustay buugaaga weedhan maxaa ula jeedaa buugiga waxaan ku xusay sayniska iyo maaragtay saynisyahanka wax xiriir kama dhaxayaan taas waxaan kala jeedaa tusaale haddii maanta shay la ogaado isla shaygaas haddii lagu celiyo xilli aan xilligan ahayn waxa soo baxay isla natiijadii soo baxday xilliga hore haddii sayniska oo sidaas oo soo noqon karin saynis ma ahanba oo wax lagu kalsoonaan karo ma tusaalaha waxa wada ogna biyuhu waxay ka samaysan yihiin laba hydrogen hal atom aba hal atom oo oxygen haddii maanta aad samayso isku darto laba hydrogen hal atom oo oxygen waxa soo baxay biyo hadduu 5 sano kadib qof kale isku darana waxa soo baxay isla biyo soo xilligaas la joogo iyo qofku xiriir ma lahan saynisku waxa saynisku waa wax joogta ah asaga hadduu aniga aan sameeyo ama qof kala sameeyo isla natiijada soo baxay sidaas marka wax xiriir kaga dhaxayn saynisyahanka iyo sayniska ilmaha urjiifta dareemayaasha dareemahee loogu horaabuuraa sida caadiga iyo culimada embryology-gan ay ka hadlaan yani culimada ku xilleer culumta maartay urjiifka waxay sheegayaan dareemayaasha la hor abuuray inay yihiin maartay aragga iyo maqalka markii laga soo tago dareemayaasha kale isla sidaas si la mid ahna quraanku uu cadeynaya tusaale wuxuu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samiican basiira markii laga soo gudbo Ilaahay yani aadamaha inaa laga abuuray candhuuf isku darsan amshaaj kadib Ilaahay wuxuu yiri waxaan ka dhignay aadamaha faja'alnahu samiican basiira mid wax maqla waxna arka isla sidaas ee culimada embryology waxay leeyihiin maraaxiisha circle-ka ilmaha wareegiisa markii lagu guuri jiro dareemayaasha la hor abuuraa waa aragga iyo maqalka
marka kuwaasa ugu horeeya intaan la gaarin dareemayaasha kaleeto boqolkiiba imisa ayaa laga fahmay sayniska qur-aanka ku jira iyo Soomaalida intee ayaad isleedahay waa ay ka fahmeen horta su'aal waxa waaye aad ay muhiim u tahay Soomaaliduna ay yani muhiim ugu tahay inay ku baraarugaan dabcan adduunyada horumartay oo caadiga ah oo baxsiga iyo research ka sameeyaa macluumaad badan ay ka ogyihiin maaragtay sayniska haddii laakiin aan tixraaco aan maaragtay xuso waxaa jiro Islamic Research Foundation oo madax ka yahay maaragtay Dr. Zakir Abdulkarim Naik oo daaci muslim ah wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay 80% quraanka sayniska quraan ku jira baa la ogaaday macnaha 80% kaas kamid ah balse still adduunyadu waxay raadceynaysaa ay baaraysaa ay baxthi iyo dadaal badan ay sameynaysaa 20 kamid ah maaragtay macluumaadkaas dhiman oo maaragtay quraanka wili ku dhex jiro soo la baadi goobaya haddii ay suuroodo maaragtay in marka 20 kaas la helana waxay ka dhigantaa in la helayo macluumaad ka badan 80 la helo oo dunida ka hormartay balse Soomaalida waxa u maleynayaa in yani aad ay u yartahay macluumaadka ay sayniska ay ka ogyihiin sababahaasna waxaan isleeyahay dabcan waxaan ugu yar qaybta maaragtay researchka inaan wax baarno oo wax ogaano haba ahaato ama waxaba ugu yarba inaan wax akhrino oo wax la qoray aan akhrino intaaba la gaarin wax cusub in la soo kordhiyo marka waxaan rajeynayaa in ay muhiim noqon doonto inay 20 kaas 8 la ogaaday inaan ogaano markii laga tago 20 ka dhiman kadib oo soo gudbi doona marka Soomaalida waxaan ku baraarujinaa dabcan inay maaragtay 8 si fiican 80% la ogaaday in qaar kamid ay noo xasiliyaan si aan 20 ugu gudubno insha Allah waxaan isleeyahay 8% boqolkaas 5% oo isleeyahay inay Soomaalidu ay wax ka ogyihiin maqleen haddaba waxaan isleeyahay xataa waa badiyay inay kaba yartaan filayaa 2% iyo ay tagayso marka macluumaad badan in Soomaalidu aysan ka fahamsaneen aan filayaa dabcan way jiraan rag maaragtay baaxisiina oo waqti badan gali inay wax badan ka ogaadaan laakiin marka aan si guud aan Soomaalidu u fiirino macluumaad aad u yar ay ka ogyihiin dabcan waxaan ku sababeynayaa haddii ay jirto macluumaad badan oo la og yahay waxa badnaa lahay qoraallo far badan oo la sameeyay tusaalaha aan markaan qoray buugga quraanka sayniska dhibaatada yani mashaakilaadka la kulmo waxa kamid ahay inaan waayay yani 2 iyo 3 qof markii laga tago oo maaragtay ayagana war macluumaad badan aan ahayn meel aan ka soo xigto far Soomaali ku qoran laakiin si adduunyada ama Carabha ahaato ama maaragtay Ingiriis luqad Ingiriis ama luqad Carabeed mid ay rabto aad macluumaadku ugu badan wuxuu ku qoran yahay luqada Carabeed iyo luqada maaragtay Ingiriiska marka sidaas ku aaneynaya in macluumaad badan laga ogeyn haddii laga og yahayna luqadaasi ku qornaa waan la heli lahayd maraaxiisha uu marayo urjiifku iyo sida quraanku kaga waramay waxa inooga sheeg aad iyo aad maraaxiisha uu marayo maaragtay ilmaha caloosha ku jira dabcan ilmaha 9 bilood sida normalka ah caloosha hooyada dhex jiifaan marka hooyinka Soomaaliyeed ilaahay maaragtay qaar far badan iyo dhammaan hooyinka muslimiinta walba joogan hasi waxa jiro yani cycle ay marayaan ilmuhu cycle-kaas culimada oo embryology-gu waxay ka qoreen macluumaad far badan oo ilmuhu ay marayaan tusaale ilmigu maaragtay marka hore inuu isku ka yimaado isku darsan yani minida aabaha iyo maaragtay hooyada isku darsankooda inuu ka yimaado kadibna oo sidaas ku noqdo cad yar kadibna maaragtay cadka oo weynaado kadibna ay maaragtay sameysmaan xibnihii kaleeto laakiinse sida caadi waxaan yani mar akhriyay nin la dhaho Professor Marshall Johnson oo baraka ah jaamacad ku taal Mareykanka Philadelphia la dhaho sidoo kale maaragtay madaxka qaybta anatomiga wuxuu leeyahay ereyada ugu haboon ee circle-ka ilmaha ay galayaan oo la adeegsan karo wuxuu ku xusiyeen quraanka marka wuxuu isweydiiyay su'aal ah Nabi Muhammad 1400 oo sano ka hor ma wuxuu haystay mijhar ama microscope lagu fiiriyo wareegga maaragtay circle-ka ilmaha marayaan dabcan 1400 sano ka hor iyo xilliga la ogaaday microscope-kana waqti far badan u dhaxeeyo marka taas waxay cadeynaysaa in quraanka ay maaragtay oo si fiican uga warramo arintaas tusaale Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratul mu'minuun aayada waxa maleena 12 ilaa 13 ilaa 14 wuxuu kaga hadlayaa wareegga maaragtay ilmo maraya marka hore in laga keenayo maaragtay ay yihiin aadamo dhoobo kadibna Ilaahay wuxuu leeyahay thumma ja'alnaahu nutfatan fi qaraarin makiin waxaan ka dhignay kuwa ku dhagan yani boos kadibna Ilaahay wuxuu ka sii hadlayaa thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudqatan fa khalaqna mudqata 'idaaman fa kasawna 'idaama lahman aakhar marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamayaa wareegga ilmuhu ay marayaan isla sidaas oo magacyo yani Laatiiniya ama Ingiriisi leh ay u qorata buugta embryology-ga oo lagu dhigo maaragtay caafimaadka badaha isku darsan oo kala duwan iyo mugdiyada ka jira badda gunteeda hoose waxay nooga sheeg maadaama aad buugga ku xustay waxa yani ciwaanada aan buuggii ku xusay sida caadiga engineer sheegto waxa kamid ah badahuna maanta waxa maleena isku darsan inay yihiin kuwa popular adduunyada maaragtay wada ogtahay laakiin ogaashahaas ka soke waxa waa arrimo waxa jiro yani cibr qaadasho gaar u baahan tusaale waxa jiro bado
macaan iyo dhanaan ah iskuna darsan haddana aan isku milmaynin badahaas sidoo kaleeto waxaa jiro badaha guntooda hoose waxay sheegayaan culimmada maaragtay marine science-ka bartay badmareennada waxay tilmaamayaan markii gunta hoose loo aado badda waxaa la gelayaa mugdi wax iftiina meeshaas kama jiraan isla sidaasna ilaahay subxaana watacaala labada suurada suuratu raxmaan iyo maaragtay suuratu nuur oo ku kala sheegaya tusaale badaha isku darsan oo aan isku milmaynin adduunyada meelo badan ay kaga yaalaana jiro tusaale ilaahay wuxuu leeyahay marajal baxrayn yaltaqiyaan macnaha ilaahay wuxuu yacni sheegaya inuu isku daray macanta laba badood haddana waxaa jiro baynahumaa barsaqun laa yabqiyaan labadaas badoodna waxaa dhex yaala maaragtay xeendaaba iskugu darsamayn culimmada maalin sayniska waxay leeyihiin waxaa cad inay jiraan nuuca inay labadaas bad aysan isku darsamayn balse weli waxaa lagu mashquulsan yahay waa maxay sheega kala ilaalinaya labadan badood oo aysan iskugu darsamayn sidoo kaleeto mugdiyadana ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay oo ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yaqshaahu mawjun min fawqihi mawjun yacni aayaddaas waxay tilmaamaysaa in badda gunteeda hoose ay ka jiraan mugdiyaal ay ka sarraysa mugdiyaal yacni meesha waa darkness aad u madow inay ka jiraan ugu dambayn maxaa talo iyo tusaale soo jeedinaysaa waxaa waay horta jaaniskan aad isiyaan maaragtay aqoon guud tiimka aqoon guud oo madaxu yahay maaragtay injineer cabdixafiid dabcan waa jaanis muhiim ah oo aan rabay buuggeyga maadaama soomaalida akhrisku ku yar tahay inaan bal macluumaadkaas ku qoran maadaama dhowr qof igu soo weydiiyo saa-isho lagu wada xiriiro igu dhahan muxuu yacni yahay iyo saas yacni waxaan uga faa'iidaysanay fideogan buuggan yacni tala aan soo jeedina waxay horta in la akhriyo qoraallo macna akhris fara badan dadku inay sameeyaan ha ahaado ma aragtay ama quraan science ha ahaado ama science bas ha ahaado ama quraan ha ahaado quraanku sida caadiga ah markii laga soo tago akhriskiisaan caadiga ah yacni wuxuu leeyahay markaad u fiirsato hal aayad ama laba aayad oo ka mid ah quraanka waxaa fahmaysaa macaani weyn oo fara badan oo maskaxdeedana ka weyn inay ku jiraan marka dadka Soomaalida inta wax akhrisa waxa u soo jeedinayaa inay ma aragtay akhris fara badan ay sameeyaan oo baaritaan adduunyada casrigan maanta la joogo wuxuu marayaa yacni casriga researchka iyo wax baaritaanka la sameeyo waxyaabo kale lagu mashquulsan hadda waxaan u maleynayaa macluumaadka adduunyada ugu badan adduunyada horumarta Mareykanka wuxuu lacagtiisa ugu badan ku bixiyaa baxthi iyo wax cusub in la helo adduunyada waxay maraysaa macnaha wixii la soo ogaadmaa wax cusub oo kaleeto inay muhiim tahay in la helo jaamacadaha ayaa ugu badan ardayda in looga faa'iideeyo maarta researchada ay sameynayaan inay noqdaan kuwo meaningful ah bini aadamku maarta u tar halkaas waxaa yacni ka dareemaynaa in ay muhiim tahay in wax la akhriyo waxna la baaro sababtoo ah haddii aadan soo ogaanin wax cusub mashaakil malaaks wixii jiray akhri taasaa muhiim ah si aad macluumaadkii hore laga qoray aad maartay aad wax badan uga ogaadaan Soomaalida marka taasaan soo jeedi lahaa in akhriska lagu dadaalo kadibna waxaad akhrisay haddii kuu suuro gasho aad qoraaleel u badasho sababta waxa laabtaada ku jira aadamu inta badan yacni ma ogaa karo laakiin waxa qorto waxay noqonaa wax dhigan oo laga tago oo biri jilalka dambeeya akhristaan marka waxa rajeenaa kale wixii qaladaad macquul tahay inay iga dhacaana in maartay isixi doonaan dadka waa mahadsantahay injineer Cabdixafiid